Koongareeska Mareykanka ayaa u codeeyay in xilka qaadis lagu sameeyo madaxweyne Trump kadib markii lagu eedeeyay in uu ku tagrifalay awoodda xafiiskiisa una sameeyay khiyaano qaran oo ka dhan dalka Mareykanka. haddaad si eega nagu soo biirtay fadlan ha ilaawin inaad subscribe garaysato rukumatood ku dhufato caalamka si mar walba aad u hesho xog rasmi ah. madaxweynaha Mareykanka Donald J. Trump ayaa noqonaya madaxweynihii saddexaad ee Mareykan ah oo Koongareeska Mareykanku ay dacwad rasmi ah ku soo ogaan si xilka looga qaado. Donald J. Trump ayaa xilka qaadisiisa waxaa loo gudbinayaa aqalka sare ama senatarka kaas oo go'aanka kama dambaysta ah ka gaari doono xilka qaadistiisa. Koongareeska ayaa u codeeyay laba dambi oo kala ah in madaxweyne Trump ku tagrifalay awoodda xafiiskiisa iyo inuu ka tilaabsaday shuruucda dalka Mareykanka. waa tilaabadii saddexaad oo golaha Koongareeska Mareykanka ay ku qaadaan madaxweynayaasha dalka Mareykanka. sanadkii 1868 madaxweyne Andrew Johnson ayay golaha Mareykanku u codeeyeen in xilka qaadis lagu sameeyo balse ay ku guuldareysteen. sidoo kale madaxweyne Richard Nixon ayaa iscasilay sanadkii 1974 kadib markay golaha Koongareesku u codeeyeen in xilka laga qaado uuna ogaaday in uu tagahayo. halka madaxweyne Bill Clinton sanadkii 1998 ay isla sidoo kale u codeeyeen golaha Koongareeska Mareykanka balse ay ku guuldareysteen in ay xilka ka qaadaan markii lagu waayay wax dambiya. labada arrimood ee lagu eedeeyay madaxweyne Donald J. Trump ayaa kuwa salka ku haya arrimo xisbi oo waxaa inta badan xildhibaanada dimuqraadiga ay isku raaceen xilka qaadista Trump halka xisbiga uu ka tirsan yahay ee jamhuuriga ay ka soo horjeedsadeen arrintaasi. codayntan ayaa dhacday xilli madaxweyne Trump uu ka qayb galahayay olole doorasho. waxa uu dadkii isugu soo baxay Battle Creek u sheegay in isagoo ka howlan shaqo abuurista Michigan ay Koongareesku ku mashquulsan yihiin nacayb iyo inay ka xun yihiin waxa uu sameeynayo. war qoraal oo ka soo baxay aqalka cad ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in madaxweyne Trump uu ku kalsoon yahay aqalka senatarka in ay laali doonaan xilka qaadista ay ku soo ogeen golaha Koongareeska Mareykanka. aqalka sare ee senatarka ayaa waxaa ku badan xildhibaanada jamhuuriga ee uu ka soo jeeda madaxweyne Trump waxaana la aaminsan yahay in ay meesha ka saari doonaan xilka qaadista lagu sameyn lahaa madaxweyne Donald J. Trump. madaxweyne Trump ayaa ku eedeysan khiyaano qaran iyo in dhigiisa Ukraine uu ku cadaadiyay siduu baaritaan ugu sameyn lahaa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden oo horey ugu soo shaqeeyay shirkadda gaaska ee Ukraine. warqad uu u qoray madaxweyne Trump gudoomiye Nancy Pelosi maalin ka hor wuxuu ku sheegay in qorshaha la doonayo in xilka lagaga qaado isaga ay tahay isku day afdambi sida loola dhaqmayna wuxuu ku tilmaamay dhibanayaashii qarnigii 17aad ee Salem kuwaas oo la dilay kadib markii lagu helay dembi ah in ay sixirolayaal ahaayeen. hase yeeshee duqa magaalada Salem wuxuu sheegay in madaxweyne Trump ay tahay in uu wax ka barto taariikhda wuxuuna intaa ku daray in xukunkii ku dhacay sixirolayaashii Salem uu ahaa mid aan wax caddayn ah loo haynin xilligaasi. afhayeenka aqalka Koongareeska Mareykanka Mrs. Pelosi ayaa sheegtay in aysan wada akhrin warqadda uu soo qoray madaxweyne Trump balse ay tahay mid aan nuxur badan lahayn. war qoraal oo ay soo saartay Nancy Pelosi ayay ku sheegtay in Koongareesku uu gudanayo mid ka mid ah awoodaha uu siiyay dastuurka qaranka. waa suuragal in mas'uuliyiinta dimuqraadiga ee horkacaya mooshinka ka dhanka ah Donald Trump ay la kulmaan caqabad maadaama aqalka senatarka ay u badan yihiin xisbiga jamhuuriga ah ee uu hogaaminayo Donald J. Trump madaxweynaha xilka qaadista lagu soo eedeeyay ee dalka Mareykanka. dhinaca kale hogaamiyaha aqalka senatarka ayaa toddobaadkii la soo dhaafay sheegay in ay sida ugu dhaqsiyaha badan ka shaqeyn doonaan sidii looga hortagi lahaa xilka qaadista ka dhanka ah ee madaxweyne Donald J. Trump. madaxweyne Donald J. Trump ayaa sanadihii ugu dambeeyay ku dhaqmahayay ficilo ka dhan ah shuruucda dalka Mareykanka balse ilaa iyo haatan lama xaqiijin karo in xilka laga qaadi doono iyo inuu sii joogo. ficilkan oo ah ficilkii afraad ee golaha Koongareeska Mareykanka ay isku dayeen ayaa midna uu iscasilay madaxweyne labana ay ku guuldareysteen balse lama xaqiijin karo in ay kaga guuleysan doonaan Donald J. Trump. dadka oo darasa siyaasadda dalka Mareykanka ayaa sheegayo in Donald J. Trump uu ka guuleysan doono aqalka Koongareeska Mareykanka senatarkuna ay ansixin doonaan in Donald J. Trump uu sii joogo xilkiisa ilaa inta uu ka dhammaanayo muddo xileedka madaxweyne Trump.
Trump ayaa caqabado hor la ku soo rogay wadamada muslimiinta oo ay ka mid tahay Soomaaliya iyo wadamada geeska Afrika ee dagaalada sokeeye ka socdaan. haddaba sidee kula muuqataa xilka qaadista Donald J. Trump? haddaad nagu cusub tahay ha ilaawin inaad subscribe garayso.